بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mid ka mid ah dagaaladii Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam uu galay sanadkii 3aad ee Hijriyada wuxuu ahaa dagaalkii Uhud wuxuu inta badan ka dhacay buurta loogu magac daray ee Uhud oo inta badan buuro kalena ay ku dhawaayeen Nabi Maxamed ciidankiisa wuxuu u qaybiyay qaybo kala duwan qolo uu saaray buurta uu ka dagaalamayo dhabarkeeda si aan loo soo dhabar jabin oo ay u ilaaliyaan oo ku fiicnaa markaa waranka iyo leebka ama ganida ku wanaagsana qolyaha kalena wuxuu markaa u qaybiyay kuwii lugta iyo kuwii fardaha furmihii kala duwanaa ee ciidanka Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam bilowgiiba waxa la sheegay kooxdiisii iyo muslimiintii iyo ciidankii uu watay inay guulo hor leh ay ku tallaabsadeen oo ay baacsadeen gaaladii warar aad u xooggan waa soo baxeen oo la leeyahay gaaladii way jabtay waxaana la soo furtay oo la helay hanti qaniimo ah oo la qaybsanayo ciidanka buurta saarnaa oo Nabi Maxamed marka hore uu aad uga dardaarmay oo yiri hadii nala laayo iyo hadii aan la jabiyo iyo hadii aanu marano iyo hadii wax waliba dhacaan ha soo dagin oo dardaaran adag uu siiyay buu warkii gaaray iyaga dhexdooda baa isku khilaafay oo qaarkood yiraahdeen war waa guuleystay ciidankii in marsha xoolaha wax ka doonanay laakiin saddex ama laba mooyaane intii kale waxa la sheegaa in ay warkii rumaysteen ahaa ciidankii waa jabeene waxa la qaybsanayaa qaniimadii iyo xoolihii la soo furtay kadibna ay ka soo daadegeen buurtii Khalid bin Walid oo aan markaa muslim ahayn oo ciidanka gaalada ka tirsanaa dagaaliyahan aad u khabiirana ahaa la sheegana wiligiiba dagaal oo galay inaan la jabin ba ogaaday in markaasi ciidankii buurta saarnaa ee muslimiinta ilaalinaya ay daadegeen isaga iyo koox wataba waxay sameeyeen in buurtii ay ka soo daba wareegaan oo ay dabar jabin ku sameeyaan ciidanka muslimiinta waxa la sheegaa in jab aad weyn maalinta la geystay sababtana ay lahaayeen marka ciidanka buurta saarnaa ee nabigu kala dardaarmay ee hungurigu soo qaaday ee soo daadegay in ay jab weyn u horseedeen ilaa la gaarsiiyay nabiga dhaawacyo aad u culculus saxaabo badan oo 70 lagu qiyaasana laga laayay lama layno kaliya ee Xamza oo kale hilibkiisii la jarjaray jabkaasi markii uu dhacay oo ciidanka muslimiinta aad iyo aad xanuun uu gaaray Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam muu bilaabeen inuu eedeeyo ciidankii uu dardaaray ama uu buurta saaray ee soo daadegay ee sababta u noqday jabka kumanuu dhaleelin faraha kuma fiiqin oo hebel baa ka dambeeyay inaan jabna muu oran mas'uuliyadda iyo hogaaminta uu Nabi Maxamed sidee waxay fartay markaasi inaan fara la isku fiiqo iyo cid la dhaleeceeyo midna aanay waxba ka qaban karin wixii dhacay bal iska daanay Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam markii la soo noqday cid kamida ma canaanan mid kamida ma oran waxa samaysan kuwii yaacay ma qabsanin isagoo intaas xanuun soo gaaray wata ilaahay uu ku amaanayo uu leeyahay fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan qalid alqalbi lam faddu min hawlik naxariis iyo dibirsanaan aad leedahay awgeed ayaabad ugu dabacsan tahay oo aad ugu naxariisanaysaa haddaad qof adag oo dadka dhaleeceeya oo kolba kii wax yar khalda dhaliila oo ka maalin khaldama ijaafeeya oo ka wax sameeya aan u dul qaadan hadaad ahaan lahayd agtaada may joogeen naxariistaada iyo dibirsanidaada ayay kugula joogan Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wuxuu barayaa muslimiinta guud ahaan iyo cid kasta hogaamada casharada halka laga qaadanayo kow naxariistu inay tahay hogaamiye waxa weyn ee laga doonayaa ee ay tahay inuu yeesho hadii la jabo inaanu cid ku fiiqfiiqeen faraha ama aanu cid mas'uuliyadda ku riixine isagu maadaama hogaamiye yahay oo wixii culays oo dhan tunka u qaato Ilaahay wuxuu ku dhiirinayaa oo uu leeyahay nimankii sababta u ahaa intaas oo qof inay dhintaan nimankii dagaalkaasi ina ku jabtaan oo dadka inta laga dila sababta u ahaa afigu Ilaahay leeyahay oo caloosha waxba ha ugu haynin waliba Ilaahay u weydii dambi dhaaf arrinkana kala tasho oo ha oranin iyaga sabab u ahaa inay waxaasi dhacaan iyo hebel baa waxa keenay iyo hadaanu hebel waxa sameyn lahayn waxaas may dhaceen hogaamiyaha guuleystaana waa hogaamiyaha markay arrimuhu sidan u adag yihiin oo kale aan ku dadaalin in ciidankiisa la kala qaybiyo ama la isdaliilo ama cid faraha lagu fiiqfiiqo qalbi xadnaan iyo niyad wanaag iyo koox isku hayn iyo inuu ka fikiro waxa talaabada ku xigtay la qaadaya ay tahay aan lagu mashquulin wixii la soo dhaafay iyo hebeladii wax khalday aan ku mashquuline mar walba eega wax weeyaan isku haynta kooxda iyo ka soo kabashada nabaradii soo gaaray shakada tan ku xigtay intaan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan ku dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh